dhaxantiyo abaaraha ka dhowri hadiigo subag loo aadiyo ku cabsiiyey daydo dhaxantiyo abaaraha ka dhowri hadiigo subag loo aadiyo ku cabsiiyey daydo halka hadda aan ku jirnaa waa mid ka mid ah godadka gacan libaax godkan oo daaqadiisa markaa ay xaggaas ratay saad arkaysaan waaytaydo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي la soo dhawaada meel kasta joogtaan waxaan taaganay duleedka Hargeysa maanta waxaan safar u nahay buur caan ah waa buurta weyn ee gacan libaax halkaas oo muuqaalo aad iyo aad u cajiib ah ka soo diyaarin doono safarkeen wuxuu ka bilaabmi doonaa halkan dhacdooyinka cajiibka ee buurta gacan libaax kala kulano ayaad kala socon doontaa barta insha Allah ha ka fogaan saaxiib fadlan haddii markii kugu horeeyay soo booqatay kanaalka subscribe sar saaxiibada la wadaag aad iyo aad maasan ذنبان وحداني عما دباتيا اللي يذن استلن فوقيتا كائنا شو saaxiibayaal ku soo dhawaada buurta weyn ee gacan libaax halkan aan saaranay waa dhakada sare ee buurta gacan libaax sida arkaysaan muuqaalka iyo quruxda iyo deegaanka dabiiciga ee buurtan gacan libaax leedahay ayaan maanta ku dalxiisnay annaga iyo qaar ka mid ah asxaabteedii muuqaalkeenu maanta arrimahaas u daaranaa doonaa waxaana weydiin doonaa asxaabta halkan nala joogta siday u arkaan iyo dareenkooda safarkan aadka iyo aadka u qiimaha badan leh saaxiib jimca la soo dhawow maanta waxaan joognaa buurta weynada ee gacan libaax waxaad ka warantaa sidaad u aragtaa buurtan iyo safarkan aadka iyo aadka u qiimaha badan leh bal dareenkaaga ka waran iyo siduu kula muuqdo walaal waan dhawahay ridwaan faarax waan dhawahay dareenkayga wallaahi dilama soo koobi karo horta mar koowaad iyo mar labaad waxa mahad kale ilaahay noo suurtageliyay inaan nabad qab ku nimaadno jawi rooban weeyaan meeshu aad bay jawigeedu wacantay asxaabtii baan dee waqti la qaadanaynaa alxamdulillaah lama soo koobi karo halkana kuma qiyaas karo dareenkayga buurtan gacan libaax markii kugu horeysay timaada mise mar hore timaada walaal waa markii ugu horeysay yimaado jawigan maxaad ku qiimeyn lahayd maanta jawigan wallaahi waa jawi aad iyo aad u macaan inaan hadal ku sheego mooyaane waxaan ku qiyaasaba garan maayo marka aad iyo aad jawi macaan weeyaan oo kala araga dee insha Allah asxaabtaada kalena waxaan ku soo dhaweynayaa inay ka soo qayb galaan jawiyadan oo kale waa la iskaga baahan yahay dadka asxaabta inay yimaadaan mararka qaar oo jawiga iskaga bedeshaan weliba asxaabta shaqooyinka waxaas ku badan yihiin khali soo dhawow buurtan gacan libaax ayaan maanta joognaa sidaad u aragtaa jawigan iyo dareenkaaga bal ka warbixin صاحب ما صرت وان كدوي وان صادق يا صاحب هذا وان سلامي دي والله قاع لي بحورت waa markii koobaad aan imaado dee jawigan ismaal lahayn uu ka dhacay meesha waana jawi degan taas oo weli ku soo hayaagnay maalin roobtay ayuu jawi degan yahay dee dadkii stress hayo wax nooga lahaa dee nala soo kan jawiga meesha taala waana salaamay saaxib adeer waxaad ka mataan malnaya odayaasha buurtan gacan libaax waxaad ka warantaa buurtan gacan libaax taariikhdeeda maxaad ka haysaa taariikhdeeda waxaan ka hayaa ingiriis baa deganaan jiray meesha sidaasaa taariikhdeeda hore ay tahay taariikhda hore markaa ingiriis baa hore u deganaan jiray waan gartay dalxiisayaasha idin yimaadaa inta badan ma dad qurba jooga mise waa dad qolqol jooga labadaba way leeyihiin labada way leeyihiin waan gartay iyo wax dee dadkan jooga Soomaaliland intaba waa timaada xilliidee markay aad idinku badan yihiin xagaagii xilliga xagaaga ay aad idinku yimaadaan marka dadka soo dhaweysan idin yimaadaan marka buurahan meelo khatar ah ay yeelan kartaa Soomaa dee waxa ay gabiyada xayawaanka iyaga maxaa ka jooga
wax walba waa ka joogaan booliska adeeriyada intaba waa joogaan soo dhow yaasinow kusoo dhowow channelka waxaad ka warantaa safarkan gacan libaax ee maanta aan joogno siduu kula muuqdaa dareenkaaga iyo jawigan ka waran maxaad ku qiimeyn lahayd maanta waa jawigeyga aad buu degan yahay iyo safarkayagu oo waliba tob weeyaan waxaan ku qiimeynayaa dee 100% sababta meeshan aad bay tob tahay oo meel dalxiiska loogu talagalay kuna habboon dalxiiska oo aad u wanaagsan waana burihii gacan libaax iyo godadkeedii waan soo wada booqanaynay maanta waanan ku faraxsannahay aniga asxaabtayadu dhammaan marka channelka subscribe gana nooga ilaawina gambaleelkana fura waa idinkaa yaasinow kolley adigu markii koobaad kuma ahaan filaya markan iyo markii hore maxay kula duwan badan badanaysaa oo markii labaad aan filaya sida gacan libaax hadda joogno marka hore markii ugu horeysay mar labaadkii baan hadda joogaa waa dee jawigiinba haddana aan kusoo laabtay sababta waa sabab aan meeshaan ka helay aad ay qurux badan meeshu tobna ku ahaa booqashada iyo maskax dejinta dhaxantiyo abaaraha ka dhowray hadiigo subag loo aadiyo ku cabsiiyey daydo dhaxantiyo abaaraha ka dhowray hadiigo subag loo aadiyo ku cabsiiyey daydo buurtan waa buur nature roobkuna aad iyo aad buu ugu daa kama qaadaba dalxiiskan wuxuu noqon doonaa kii abid aan maray ugu xisaab badnaa saaxiib yaal waxa garabkayga taagan Khalid Hayba oo kamid ah asxaabta safarkan nagu helinayay Khalid saaxiib soo dhawo marka hore waxaad ka warantaa safarkan aan ku joogno maanta buurta weyn ee gacan libaax dareenkaaga sidoo aragtaa jawigan maxaad ku qiimeeyay maanta saaxiib oo dhawahay ilaahay mahadle kulley waxaan soo soconaba ilaahay waa soo gaarsiiyay meesha u soconay gacan libaax iyo safarkeedan maanta aan imaaday in badan baa isku riyoon jiray oo jeclaan jiray gacan libaax imaado laba meelood baan aad u jeclaan jiray daale iyo gacan libaax alxamdulillah hadda maanta ilaahay waa soo tagay gacan libaax imaado waliba waxa weeyaan wixii ugu soo tagaliyay xilliga ugu fiicnada la iman lahaa oo waad aragtaa maanta jawi aan ku jirnay jawi degan jawi rooban iyo quruxda waxa weeyaan waxaan indhaha soo laabanahay marka meeshan waxa leeyahay kulley anaga waa naqancisay saaxiib soo dhawow safarkan qiimaha badan ka war iyo jawigan maxaad ku qiimeyn lahayd maanta waxaan joognaa buurta gacan libaax sidoo aragtaa saaxiib waan dhowahay adiyo channelkaagaba intaa waxaa dheer horta maanta jawiga wax lagu aan ku sheegi karaba garanayo waayo xaaladda aan arkayo waxaan suuraysan karaba maaha wax afna lagu sheegi kara maaha qofkii arka unbaa sheegi kara tilmaamina kara laakiin imka haddaan kuu tilmaamo ama wax ka idhaahdo inay aad fahmi weydo ama aad qiimeyn kari weydaa dhici karta waayo waxaa jira daruuro saaran buuro oo aan la qiimin karin halka hadda aan ku jirnaa waa mid ka mid ah godadka gacan libaax godkan oo daaqadiisa markaa ay xaggaas ratay sidaad arkaysaan waa god aad iyo aad u cajiib ah oo marka qaar dadka deegaanku ay ku sheegeen in ay bahala galeen noqoto gudaha waxaan ugu jirnaa godka markaa gacan libaax godadka idiin muuqdaa waa daaqadaha sare ee maxay ahayd godka gacan libaax saaxiib yaal saad la socotaan waxaan dhex maraynaa godka gacan libaax buurta gacan libaax oo god aad iyo aad u cajiib ah oo la odhan karo god aad iyo aad u cabsi ah adunbaan wax dhaadine ama